الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضوض يا ملك استشوفتان بكسر وهذا تي في عالمي وهم كيم تي في قوة الضباط كان ورئيس بن عيد طابانية عن كل يلندونه مجال هذا معلوم عاصمة الصدحات وده كيسولين عبد القادر ديناري أو سواه قرآن يراه أو كنا مجال هذا معلوم إسلام كاسين قري قرآن العصب أو فرع عصب ويدو لغة عصب هي قرآن العصب طبعا مكورين وحكي عليه نكسر وهذا تي في عالمي وهم كيم تي في محمد وسات سكتور تو كله وهي aad aadna wad mahadsantiin dhamaantiin TV-ga iyo bulshada Soomaaliyeed ee daawanaysa dhamaantoodba aad aad way mahadsantihiin hadii aan u gudbo tan qoraalkan iyo waxyaabaha aan qorayna horta waxaan qoray waa luqadna way adagtahay sida loo qoro luqad marka waxa la dhahay wixii labada dibnood ka soo baxa waxaan anigu qoray luqad baan qoray waxaan qoray oo kale farteedii baan qoray oo cusub iyaduna waxaan qoray oo kale xisaabteedii baan qoray waxaan qoray oo kale Allahumma salli ala bilaheedii baan qoray oo bilaan iyagana qoray bila cusub ayaan iyagana qoray waana idin tusi doona waxa kale oo qoray marka buugaasi kaamirku yahay oo macna xisaabteedii wax waliba uu dhameystiran yahay marka taasi waa luqad iyo farna way kala duwan fartina waxaan u qoray Soomaaliland wayna waa goon waa buug gooniyada marka farta Soomaaliland aan u qoray farta waxaan doonayaa inaan academic u bandhigo academic uu weeyahay academic aan u bandhigo insha Allah ta'ala maadaama inahay wadan madax banaan oo aynu leenahay calankeena goonu leenahay oo aynu leenahay maxaan ku dhahay Allahumma salli ala Muhammad aynu calankeena goonu leenahay oo aynu de wax walba ku kala baxnay Soomaaliya oo maanta ayna kamid ahayn Soomaaliya sida Scandinavia-ka wada ogtahay Denmark baad ka timi maxaan ku dhahay de waa dad walaalo wada dhashay Danishka iyo Swedishka iyo Norwegiga iyo Finlandishka waa dad wada dhashay laakiin de waa isku luqad afka way isfahmayaan laakiin waxay ku kala duwan yihiin qoraalka ودن كاس ما دو ودن مدح بناي هاي دوينا فرتيسنا جون نقطة مركا حدود هذا وين كوبان مدح بنات هاي مركا سومالي لان فرتم بين قاعد النايد يلام بركي 252 جي إن شاء الله كاس نقول هلنا لكن ما أنت فرتي وارين وضع سومالي لان وضع فرتي وان وضع هدي الله لقاته ده هدي الله لقاته كل وان صوب بندقية ده فرتنا وين تستونا إن شاء الله تعالى وحن وضع فرع عصب وكرايدنا فرتع عصب سومالي لان بيوقرته سومالي لان هو كرهته هذا واحد كقومن تاعي Somaliland ووطن مدح بنان Soomaalina waa wadanka ugu guunsan marka nul la doonayo Soomaaliduna hadaanay noloshada waxa uga tan ku sheeganaa waxaan ku sheegayaa maanta hadad labadeenna nin walaalihii hadad adigu wax isiin weedo anag wax ku guuri waayo heedade noloshada ma koraysin Soomaaliduna wax soo quuran weeyo wadanka Somaliland layda waxa weeyaan wuxuu ahaa wadanka Soomaali yaani ugu horeeyay calankaata Soomaalikaata وانا وطن ككريه دوني انه الصومالي مدايه هدنا شنتي صوماليات بينو اسو كينو مدايو اي xornimadiisa horta u lunta maanta waxaan u wadaan ku sheegay ninka ku farxay niman ku farxaynba ninka doonay niman doonahaynba waxaan maanta wada farc cusub baan wada farta cusubna academiga iyo Somaliland dadkooda qoraaga ee qoraayada ugu caansan Somaliland ayaan u gudbinaya wixii laga saxaway deena dad oo kaysasi samaamug iyo wixii laga saxaway academiga u gudbinaya farta saddex way qaranayaan ninka qoraaga uu garanaya afar saddex qaybood baan ka dhigay qayb carabi baan ka soo qaatay qaybna laatini qaybta laatiniga ka soo qaatay maxaan uga jeedaa marka in de markaad erayga qorto inaad ka waayin mobilkaaga oo mobilka ku qorto bade oo degdeg ugu qorto shayna waxaan ka soo qaatay markaad qalinka qorayso ilaa qofku muhiim weeyaan iyadana in wax la qoro ee xafiis marka joogto meel walba marka joogto ee hadana far garanaynin de ma ka soconayso iyadana waxaan ka dhigay maxaan ku raahday laatini ma ka dhigay wala fududeynaya xagga sarana waxaan ka dhigay carabi ayaa ka soo qaatay waxaan uga soo qaatay carabiga midki iyo shad baan u yeelay eray kasta shad buu leeyahay haduu way yahay laba xaraf buu leeyahay haduu yar yahay wuxuu leeyahay mid buu leeyahay marka waxba yaan hadal ku daal horta waa xarabi wax way xagga sare kisra dumma zadki iyo kale marka waxay Soomaaliga kaga duwan tahay Soomaaliga wuxuu lahaa kha iyo da iyo sha saddexda shay baa ugu badan saddex shay Carabi ka yimaadeen oo eray Carabeed way بعض عرب بالغيرية شأن عرب بالغيرية وشنكي يا مركا إننا الصومالي ما دام إنهاي وأنا لقى على تكسب يكون قناص إن يجي لقى على تا أي بكسب يكون قناص مركا بعدي ما دام الصومالي جو هراها دأوها ما هكذا جاي تأبأ بان كذا جاي وبأ يتأ ولا على نقطة يعني دأو استمرار في نقطة يريد ذوقي ها فرتي هراي قورسي وحتى الصومالي أيوه ها تنا واحد هو من كاري Somaliland أيها ده وقارته ما دابها
way maxaad ku beeskaraysaa marka waxaan ku beeskarayaan ku sheegay de far Soomaaliya hore jirtay nin kasto ka qayb qaatay horta maanta waan u mahad celinayna wada wariga buuga ku xusayba luqadan kale wanaga ku xusatay Soomaaliya u dhaxaysaayo de Soomaali kasta cadow bay leedahay ka Soomaaliya jaga cadow buu leeyahay waxa laga yaabaa inuu haduu dagaal qaadayo de fartan ha isticmaalo ila wadad walaalaha Soomaali waa walaalo horta ma ogtahay Soomaali walaalo ma de fartan way ka dhaxaysaa waxa uga dhaxaysaa ku sheegay waa luqad badbaada luqadan badbaada la yiraahdo gadigeedaba xasaniye la yiraahdo waxay caawinaysaa waniga ku luqadan afka Soomaali afka ka soo baxda ayay caawinaysaa af bay weeyaan waa tan waa af waa luqad tanna waa far afkii way naga wada dhaxeeya waxeenaba laakiin fartun baa lagu kala duwan yahay sida caalamul arab oo kale caalamul arab khaliij de wad garanaysaa maxay ku kala duwan yihiin de waa jinu iyo maxaan ku raday iyo de ereygan caadiga isticmaalaya nooca kala ay de ku kala duwan labadii carab tahay walaalaha ayaa ku kala duwan walaajad baa la raayo fartiina way ku kala duwan yihiin de waasan Danishkan iyo Swedishkan iyo waxana ay fartoodu kala duwan fartu ma kala duwan de si aad ugu arkay inay tahay ummadan wada banaanbe wadan madax banaan si lagu arko ayaynu fartan kaga duwanana marka Soomaaliland kullu way u baahan tahay waana sameynayaan laakiin anigu waa sii horeysiisanay anigu waa sii qadimanay fartayda anigu waa sii qadimanay waxa laga yaabaa Djibouti inay samaysatay iyaguna far kale ay jigjiga ay Djibouti maxaan ku raadtaa kalarka shanaad Soomaalidu inay iyaguna samaysatay Kenya samaysatay laga yaabaa laakiin anigu tii Soomaaliland kullu way soo wadaanay tii ay keeni lahayn ayaan anigu sii qadimanay marka waa ku tusaya walaal saan kugu sheegana dawa ka horta intaanan u galin si yaani u qormaysan ku tusaya moogta waka wadu jeedaban malaynay walaal Soomaaliyeed waka waa aadi iyo ba iyo ta iyo si Soomaaliga way exactly eedu ma ka duwan eedu waa loogeey loogeey weeyaan marka Soomaaliga hore wuxuu ka koobnaa waa li xaraf yani yar yar ka deekoon shaqalka gaaban waa shan kan waa lix oo dheeriya ku jirto meel kasta ku sii daraysaa baad ku sii daraysaa waa kaas oo waad ku sii daraysaa xagan kalena xadi wayna sad la socotaa marka qoraysa kaligeed kama qoraysid wayna sad la socota kelmadda sad wayna la socota kelmadahan kale maxaan ku raadayay dawana kaas oo aragtaa ku laba xaraf lahaa iyo ku xarafka lahaa iyo wixii oo dhan waatana way wada socdaan dhacdiyo kale wata soo iyadu ka duwan tahay maxaan ku raadayay Allahumma salli ala Muhammad soo hada taasina wata vaadiyo kale va wada aragtaa iyadana faadi wayna ha la socota marka qorayso markaas ay noqonaysaa fa hadii kale ma noqonayso wayna vaadi la socota inta va qorto وانا دهقنا الرئيسه لبا حرفنا بركات ka saarto markaas noqonaysa fa noqonaysa hadii kale ma noqonayso marka tan wata yaani farta farka qurux badan oo maanta la keeni kara ma jirto laakiin ana maanta wasi horumarsanaya waan u sheegay ha qoritaankeedu kala meel yar dib badan ma dhibana because ma taa qofku haduu Soomaaliga yaqaano ma dhibana kuma yaani dhibku kuma keenayso waayo waxay la mid tahay waa Soomaaliga kala dad lagu kala duwan yahay maadaama ay erayga Soomaaliga haay hore da Carabu ka yimid Soomaaliya sida carabtu ma loo qoro wax kasto la sameeyo erayga Soomaaliga lagu hadlayo wax kale lagu qori karo waa inaan Carabi lagu qoraa amba de eray carab la isticmaalaa waa labadaas ma noqonayso marka ma dabad eray isticmaalo da iyo sha iyo a iyo a iyo ma iyo da iyo wixii bay noo wadayaan wuxuna waa carab ay nooga yimaadeen erayada Soomaaliga oo dhani carab ay ka yimaadeen wax ku qoran tusaale ha ahaan ma tusaale gaaban ayaa ku qoran tusaale gaaban ha tusaale gaaban marka baleeg tusaale maaragtaa taadi wata waliba taaduna dhibac bay leedahay saasay leedahay iyaduna korka sare ay ku leedahay iyaduna dhibac saas oo kale ku leedahay moogtay saa u bahraysata waka taadi wata u odina waa labada dhibacood leh saadi waa labada xaraf ay leedahay aadi haddana wata soo labadaas leedahay tanna way caamaraysaa waa saale bay noqonaysaa moogtay markay ayo kale aad qorayso dabal aad qorayso ee labada xaraf saa ugu qoraysaa masa tanna ku caawinaysaa waa kaasta halkaasna waka marka dawaka labada xaraf leeyihiin farfarta ka qurux badan oo la keeni karo